إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا أخيارتا لما وإذي وذا السلامي ميلو باجوكتين هدي بريها والا كلام قناع اسكو سو نقدو عن مركه هوري marka labaad maanta mowduuca aydiin wada waxay tahay mowduuc awadi sugiiseen oo ah sidee baan quraanka ku xifdiyaa mowduucaas ma ahan mowduuc aan ku dhameyn kara hal fadhi iyo laba fadhi ma aha laakiin waxa rabaa insha Allah intuu Ilaahay iga karsiyo inaan wax ka sheego mowduucaas aan gudo galay insha Allah sida quraanka loo xifdiyo way sahlan tahay haddana marka la si loo fiiriyo way dib badan tahay marka hore way sahlan tahay marka aan dhahayo laana way sahlan tahay oo Ilaahay cidoo u fududeeyay ay u sahlan tahay marka labaad aan dhahayo ma sahlanana sax waaye ma sahlano Ilaahay haduu ku fududeynin kuma sahlan laakiin waxa rabaa inuu Ilaahay karaal noqdo hal iyo laba inaan tilmaamo sida wada ognahay aan shaki ku jirin qof walba naga mid ah wuxuu jecel yahay quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waalidiinta waxay ku taamayaan in noqdaan ilmahooda kuwa xifdisan quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waxaan leeyahay nidaamka waxa loo xifdinayo ayaa kala bedelan aan u soo noqdo nidaamka waxa loo xifdinayo nin walba dadaalkiisa iyo juhdiga uu quraanka geliyo ayuu wax ku xifdinaya ma jirto nidaam kaliya toosh lagu iftiiminayo la leeyahay nidaamkaas kaliya loo maro kan yaa loo marin ما أها نظام كأدي كوسهلا هدينا قطو إن آخرين هذا إيه بدأتو ولوح فدية هدينا قطو إن معاني آية لتو أو قرآن ككاد جيسو وذلك هدينا قطو إن استماع سميسو أم قرآن كاد جيسو وكل فدين كرتا أي الموضوع وأدي كاجا وكل فدين كرتا قرآن كإله سبحانه وتعالى تاسي وباقا أدرى يدك قرآن كإلهي برتين هراء برتين لكن قرآن كإسكال عفين متى دتك بلاوغا waxaan leeyahay inay sameeyaan macallin u gaar ah iyo awqaad gaar ah ee quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku xifdiyaan warkaygu faahfaahsan waa inoo usbuuca kale wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh